maanta waa 9 bisha Abriil 2026 48 sano haddaanu gadaal aadno waa 9 Abriil 1978 waxaan ka hadlaynaa waa dalka Soomaaliya kacaan ayaa jiray dalka Soomaaliya ka curtay 21 Oktoobar 1969 oo uu hogaaminayay Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiil kale kacaankaasi markii uu jiray ilaa 8 sano ilaa 9 sano oo la gaaray 9 Abriil 1978 rag saraakiila oo sare iyo rag kale oo ay wateen ayaa isku dayay inay inqilaabaan amaba afgambiyaan dawladii General Maxamed Siyaad Barre arrinkaasi waxa uu ahaa mid laga abaabulayo duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta ugu weyn oo ah guutada saddexaad ee difaaca cirka oo iyadu deganeed meel ka baxsan magaalada Muqdisho rag ayaa la magac dhabay xilligaas raggaas oo kadibna la qabtay kadibna la maxkamadeeyay kadibna la dilay waxa kamid ahaa nin korneyl ahaa oo lagu magacaabo Ciro iyo rag kale oo la socday oo iyagu u heshiiyay siday suurtagal ku tahay in Maxamed Siyaad Barre jagada laga wareego maadaama isaga laftiisuba afgambi aan dhiig ku daadan uu kula wareegay aniga waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo xilligaas 18 jir ah waxaan la sheekaystay saraakiil sare oo iminka nool oo ahaa raggii u soo joogay ee markaa gaashaan la dhaxiyay gaashaan la sare ahaa ee iyagu qaybo kala duwan ka hayay ciidamada militariga waxaa kamid ah General Maxamed Cusmaan Qaadi oo iminka ku sugan gobolka Minnesota magaalada Minneapolis oo aan la sheekaystay marar badan iminkana aan la sheekaystay mar dhow waxa uu ahaa taliyaha guutada saddexaad ee dhinaca marka la fiiriyo sawaariikhda waa halka laga abaabulayay Cornel Ciro iyo raggiisu ay ka abaabulayeen guutada saddexaad waxa uu ii sheegay Maxamed Cusmaan Qaadi habeenkaas inuu seexday saqdi dhexe saddexdii subaxnimo in lagu soo garaacay qolka uu jiifay nin sarkaala iyo laba la socota waxa uu ugu yiri ninka sarkaalka ah waxa uu ii sheegtay saraakiisha iga hooseysa ninka mid inuu yahay laakiin ma aanu ahayn codkiisu kadib waxaan isku dayay inaan hubsado waan ogaaday inaanu ahayn waxaan isiri saddexda subaxnimo iyo xaaladani ma qumana waxaan furay buu yiri kaaboorka amaba armaajada bistooladeydi ayaan la soo baxay kadibna darashada ayaan waxaan ka riday 2 xabadood kadibna waxaa soo dhaqaaqay Cornel Ciro iyo rag la socday darashada aaga aan ka riday ayay yimaadeen ragga ay ii soo direen oo darashada u soo wareegay ayuu wuxuu ku yiri Ciro ayuu yiri ninka miyaad disheen markaasay waxay ugu jawaabeen anagu ma dilin ee taliya xabadaha isaga ayaa ridaya waxa uu yiri buu yiri Ciro anagu dhiig dooni mayno halkiisa ku jira ku ilaaliya hadalkaas waxaa leh waa General Maxamed Cusmaan Qaadi oo ahaa taliyaha guutada saddexaad ee ah halka laga abaabulay inqilaabka laakiin isagu markaa aanu waxba kala socon waxaa jira rag kale oo ka tirsan saraakiisha militariga dhinaca taangiyada ee qolyo joogay dhinaca hiilweyne ee Balcad ayaa iyaguna soo dhaqaaqay waxaa kaloo la isku dayay in qaybta taangiyada ee wasaaradda gaashaandhigga aan ka fogeyn iyada lafteeda in lagu dadaalo in la hanto laakiin aanay suurtagal noqon markii la ogaaday in nuxnux ay jirto dhinacana saraakiishii kala duwana ay laba qayb yihiin qayb iyagu u tashaday inay arrinkan fuliyaan iyo qayb aan u tashan ee dalka iyo dadka u shaqaynaya ayaa waxaa wararku ay sheegayaan guutada madaafiicda goobta inuu haystay Allah u naxariistay General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo isaga laftiisu ka war helay xiriir la sameeyay dhinaca madaxtooyada sheegay xaaladaha iyo dhaqdhaqaaqa jira xogta aan helay waxa ay tahay in askarta subax walba waxay sameeyaan orod ama waxa loo yaqaan BT qaybta amaba guutada koobaad rag ka tirsana oo BT-da ordaya iyada laftooda Cornel Ciro iyo raggooda inay qabtaan waxa kaloo la ii sheegay baska saraakiisha ka qaada magaalada Xamar ee geeya xarumaha kala duwan ee ciidamada ee banaanka ka ah Muqdisho isaga laftiisa inay qabsadeen waxa la isku dayay ninka isagu sarkaalka ee ka yimid dhinaca Balcad iyo Hiilweyne in uu tago nimankan taangiyada joogay muhiimka ah ee wasaaradda gaashaandhigga aan ka fogeyn laakiin waxaa la sheegay taliyihii dhinaca taangiyada oo Siciid lagu magacaabi jiray inaanay u suurto gelin inay qabtaan laakiin markii dambe ay qabtaan waxa kale oo jira ragga la yiri waa la qabtay ee la xiray inuu kamid ah Allah u naxariistay General Cumar Xaaji Masalle markay bilaabeen culayska iyo dhaqdhaqaaqa ayaa waagu aad u soo bariyay sida wararku ay sheegayaan taasina waxa ay keentay ka warhelidii in la is abaabulo laakiin aanay raggaasi suurtagal u noqon in markaasi arrinkii ay rabeen ay markaa ay fuliyaan warar ayaa jira sheegaya in ninka lagu magacaabo Cornel Ciro Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay hogaamiyihii dalka Soomaaliya uu yeeray maalmo ka hor oo uu ku yiri waxaan aaminsanahay in dhaqdhaqaaq uu jiro adigu dabada aad ka wadid arrintaasina ma qumana iyo arrinkaasi madaxweyne ma jiro waxaa la ii sheegay in Maxamed Siyaad Barre uu u sheegay Cornel Ciro inuu u magacaabay gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe oo uu tago Saakow iyo Bo'aale
laakiin ciro ma aanu tegin maadaama uu watay barnaamijkan isaga iyo saraakiil sare oo xamar joogtay saraakiil sare oo la sheegay inay gobolada joogaan. wararku waxay sheegayaan in la qorsheeyey afgembiga 12 abriil ee 1978 taasoo loola jeedo saraakiisha oo dhan iyo madaxweynaha iyo golaha sare iyo xubnaha dowladdu marka ay tagaan shir kale ofishaale oo ku yaalay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga in halkaas lagu qabqabto kadibna laga dhawaajiyo in dalka afgembi lagu qabsaday. laakiin haddii ciro ogaaday in maxamed siyaad barre ku yiri dhuxdhux ayaa jirta, xaalkaasi ma qumana ayuu is yiri. arrin kale ayaa jirta oo aan la hubin oo ah isaga laftiisu inuu arkaya ragga kale ee la waday inqilaabka, ragga xamar joogay iyo ragga aan jooginba in qaarkood damac uu ku jiray inay iyagu hoggaanka ay qabtaan oo isaguna uu arkaya markaa inuu meel cidlaa kusoo dhici karayo. nin generaala oo nool ayaa waxa uu ii sheegay in ciro uu tegey xarunta saraakiisha waa shirkal ofishaale nin ka yimid dagaalka oo askariya oo ah nin kusoo xanuunsaday dagaalka oo dabcan waali weeyaan mar haddii dagaal laga soo laabtay oo isagu raama leh, waxaa loola jeedaa raamaha timihii ay ku baxeen oo afaafka hore ee shirkal ofishaale iska fadhiya ayaa ciro markuu soo galay wuxuu ku yiri kornel ciro barnaamijka aawadid uma malaynayo inaad ku guulaysanaysid. waa waxyaabaha keenay shakiga in ciro is yiri haddii dadkii waa laba ay saa ku leeyihiin maxaad u malaynaysaa kuwa fayow. taasina ay keentay 9 bisha in lasoo hormariyay 3 maalmood ka hor. kadib raggii waa la qabqabtay, kadibna waa la maxkamadeeyey. weliba waxaa la ii sheegay oo uu ii sheegay generaal maxamed cusmaan qaadi maxkamadda la saaraya raggaas isku dayay inqilaabkan 1978 inuu madax ka ahaa janankii allah u naxariistay maxamuud geelle yuusuf. waxa weheliyey ayuu yidhi cabdulqaadir xaaji masalle iyo weliba ninka kale ee lagu magacaabo cusmaan maye oo ahaa korneylka maxkamadda militariga. marka la fiiriyo guud ahaanba xaaladaha jiray ee arrinkaa ku gadaaman siyaabo kala duwan ayaa loo sheegaa, laakiin inqilaabkii waa fashilmay. ciro iyo rag kale waa la dilay, rag kale waa la xirxiray, ragga kale gobolada joogay ee kulug lahaa ama farta ku godneedna xuduudaha ayay ka tallaabeen, kadibna mucaarad ayay noqdeen. dalka soomaaliya kadib waxaa ka abaabulmay jabhado kala duwan. taasina waxay keentay culays xoog leh oo ah ilaa kacaankii 21 oktoobar inuu meesha ka baxo marka la fiiriyo 26 janawari 1991. dabcan saraakiishu meel kastoo ay joogaan adduunka gaar ahaan qaaradda afrika way isku dayaan inay wax afgembiyaan, laakiin rag baa iskhilaafo uma suurto gasho, ragna way u suurto gashaa. xilligaas ayaa la isku dayey generaal maxamed siyaad barre in xukunkiisii ay dhacdo in la afgembiyo, laakiin suurtagal haba yaraatee ma noqon. weliba warar ayaa jira la ii sheegay oo ah nimankan dhinaca dabaabaadka ee ka yimid hiilweyne marka ay rabeen inay tagaan dabaabaadka kale ee wasaaradda gaashaandhigga aan ka fogeyn oo weliba ragga u badani ay u badnaayeen raggay isku heeb yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya generaal maxamed siyaad barre inay raggaas u diyaarsadeen hadal ah in golihii sare ee kacaanku ay dagaalameen ayaguna ay hiilweyne uga yimaadeen inay doonayaan inay difaacaan generaal maxamed siyaad barre. laakiin arrimahaasi oo dhan laislama gaarin ee xaalkii meel dhexe ayuu ku burburay.